السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد طبعا حال لها عبد الرحمن عبد الله حاجي دب عصر. الشيخ عبد الرحمن ليبيرا إنقصتو وأنا مارتي dadka أنا كشخصين وحنا من صوماليا جعل دلكيسا ددكيسا iyo diintiisaba ku dhashay Soomaaliya ku barbaaray Soomaaliya wax ku bartay dalka Soomaaliya kaga soo baxay jaamacad Somali National University and college-kii qiimaha badnaa ee la oran jiray Lafole College of Education ayaan ka baxay major-kay wuxuu ahaa major in agriculture beeraha minor in biology ayaa ii ahaa waxaan ahaa raggii ugu dambeeyay oo ka qalan jabiyay jaamacadda markii ay dawladda Soomaaliya ay burbureysay shaqo ahaan waxaan ka shaqeeyay iskuuladii Soomaaliya ayaan ka shaqeynayay iskuulada Muuse Galaal Ismaan Gadraagi Caalimire Lafole High School iskuuladaas dhan macallin ayaan ka soo noqday dawladdii dalkeena markii uu burburay qiimaha iyo qaayaha badnaa waxaan macallin ka noqday dalka Yemen oo muddo 10 sano aan macallin ka ahaa dugsiga sare كبعد إني هل كان يمريكن كيان يمد أو سيدنا عن معلم كان نقضي كولومبوس بابليك سكولز مقالات كولومبوس مساجد يدا طبعا أيضا مارتي أنت سواء كخدمني ودين إلهي ونهيلين هي ملابدنا أيان إمام قصة نقضي وحكم منها السيارة وحكم منها سبوكين وحكم منها مقالات نيويورك هل كان كولومبوس ومساجد يدا بدنا أيضا كأساسي مسجد إبراهيم الخليل هي مسجد كان هدي أنجوبه marka waxbarashada diiniga ah intaas tan maadiga ah way isla socdeen jaamacadda hadda iyadana maartay islaamiyana waan ka qalin jabinayaa masterkiina haddana waa isaguna maartay waan guda galay oo inaan dhawaan ka qalin jabiyo ayaan rajeynaya haddii Ilaahay ku idmaayo walal su'aasha ugu horeysaan rabo taariikh nololeedka ka bacdi inaan ku weydiiyo waxa weeye maadaama cilmiga diinta taqaana jaamacadna aan soo baratay oo cilmigan kale ee dunida ama cilmiga kale aad baratay sidee baad u aragtaa mustaqbalka Soomaaliya sidee loogu sameyn karaa nidaam ku salaysan shariicada islaamka walaal gacaliyo waad mahadsan tahay horta Soomaaliya waa dal aad u ballaaran Soomaali weyn baan anigu horta aan aaminsanahay oo la qaybsaday 1884 ay qaybsadeen gumeystayaasha bilaa naxariista ah cadaawadda u haya shacabka Soomaaliyeed ka bacdi xilligaas aynu ka soo gudubnay qaybsiina la qaybsay ka bacdi wada xusantihiin duulaankii ay nagu soo qaadeen halgankii daraawishta ee dheeraa ka bacdi labadii gobol ee hartay oo xorriyadda qaatay dagaalka aynu galnay 77 yani ka bacdina gaala iyada walaala ah kuubanaas dheer ruushka Yemen iyo Jarmalku ay u soo hiliyeen ciidamadeennii ku isaas ku soo maaratay jabay reer galbeedku aan isku haleynayno ayaguna noo ballan qaaday hub iyo saanad iyo dhaqaalana nooga goostay oo ardayda ayaguna ka dagay ka bacdi waa kuwii jabhadaha soo aasaasay dawladdeennii waa tiisaas ku burburtay ilaa haddana na qaybinayo kooxdiimeedyo iyo qabiilooyin madba magac wata iyo shaatiyo kala duwan ay noo aasaasayaan in iskuna baabi'inayno haddana maaratay ay maaratay tartankii ay ku jiraan si Soomaaliya ay maaratay u sii taaturay lahaayeen walaale Soomaaliya waa dad walaala ah Soomaalidu isku dhaqana isku diina isku rabbiya isku nabiya isku qibla ah ehel ah sokeeya ah isku sinji iyo farac ah kulligood hadii Ilaahay ku idmaayo isku luqad ah oo ka duwan qowmiyadaha kale ee dariskana la sii Itoobiya oo 80 qowmiyadood ah laakiin Soomaalidu waa halkaas qoys walaal macaan marka inay isfahmaan midoobaan heshiyaan dawlad dhistaan wax wada qabsadaan waa sahlan tahay waxayna ku sahlan tahay dadkii oo muslima oo dad ahlu tawxiid ah oo dad ilaahay rumaysan oo nabigiisa Muhammad alayhi salatu wasalaam subhanahu jecel xabiibkii yani nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jecel diintooda macaan jecel raba janno inay galaan kana badbaadaan naar marka walaalle taas waa wax sahlan حكومة يا شعب يا مدحوينة مثل حكومة يا مدوا حكومة وداد يا ورلة عالم يا عامة كل جين شرعي إلهي إن نقول جالس إنه أي نكبت بعدين تحسنا واحد أنا وقال له يا مانا واحد نبي صلى الله عليه وسلم ويري
حتى ترجعوا إلى دينكم إلى أظن قطان دينتيني نبت قليه مهرسان دولي درحمو كما بحيسان سلعي سحرير كما بحيسان يعني وحا كان دعينا نبي جنبا نوشي إن عدو أي سوق يرانا يان تتداعى عليكم الأمم عدو أمضاها سوق يرانا السيدة مارت كوا وحنايا مركي حيرada أي مارتي isugu hareerayaan saas oo kale ay u cunaan cuntada saas oo kale marka badeeni baa la qaybsaday oo lagu tartamaya Kenya waa u jeedaa reer galbeedkii oo dhanba waa fadhiyaan birigeeni baa lagu tartamaya macdanteeni baa lagu tartamaya gaaskeeni baa lagu tartamaya beereeni baa lagu tartamaya kalluunkeeni waa lagu tartamaya dadkeeni baa gaajaysan oo silc iyo saxariir iyo gaajo u baaba'ay oo waxay liqaan la hadii la gudmahayo marka walaal laga caliye taas danteena iyo culimo iyo caamada kulligeen waxaynu ku walaaloobi karnaa waa diinteena islaamka waxaana tusaale hadan ku siiyo نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدون كان أنتو صن إلهي وصدرين سيب عالمك وهك بعدين سيب النقدين مركي عالمك عرب سيب أهين قريش سيب أهين يعني دول كان مدل إيست كانوا يقال سيب أهين تطبخ تقعونه لجوميستو تو سوبر باورز يعني بيرشي رومان كي أيو طليان بأهين تد سلامية يلا يحد عبدي أهين تد قبله ده أساء أهين تد واحد أهين هذي كود ما إصلاحي حروب إهلية كتيرة ونيك حق بدل نيك مسكين كأودعاء أو بابا أو مرة حرام كنو واحد أهين تد دلها من قبائل الصبابية أو بقول سنة إلى بقول إلى 14 سنة أي دجال مرة السعودي وحنا حلية أو حل النقدي كتابك إلهي السنة رسولك يتوحيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أي جارين ويؤثرون على أنفسهم إن يصد دوران نفته ذاك الدوران أو ولا له دوران هو إنك يصد فران حوله دي مارة أيوة قاعد ولا له سيان ساس جارين قبائل كل الدونا إزدقالي مركز صومالي ولا له وأنا إهل وأنا الرحم وحنا كسيوين أيوة مسلم أو أهل التوحيد وأنا سهلان تاعي هدي أنا يليرينين قف كستنا إنه الصوت هاس كشقيه أيال الربا أينو يسبدلنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى يقوم بدل يسوع بدلا. أوكي waxaa jirta xisbiya islaamiya oo ka sameysmay wadanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka weydiiyo xisbiyada waxa kamid ah al-Ittihad waxaa jira leeyahay xisbi la oran jiray oo ka sii horeeyay waxaa sameysmay maxaakiimta islaamiga ah oo damcada inay islaam ku dhaqaan Muqdisho lista ee agaarkeeda haddana sheekadu waxay maraysaa al-shabaab maxaad adiga fikir ahaantaada ka qaldan baad kula tahay oo ay marnaba ugu guuleysan lahayn ururada islaamiga ah inay dadka mujtamaca ka dhaadhiciyaan in lagu dhaqmo dhaqanka islaamka miyaad u aragtaa diinta islaamka dadka Soomaalida gudaheeda in xabad macnaa ama dagaal lagu wajaho mise waxaad u aragtaa sida hadda carabta iyo wadamada isbedelaya in nidaam kan xisbiyada ah in lagu dayo oo dadka islaamka marka xisbi nabad oo hubaysnayn halka jabhada ka u tartama say u aragtaa arrimahaas والله خير الله كسيه وسؤال أدي قيمة بدن وبنا باهن جواب يحل وباهن هذي لا يكيد معه وعذر شراء وباهن حل يداوى وباهن سأقول هيبة إنك ضد مسلمة أو صومالية أو سكون لقنا أو دين أدونك أي كوير تاي ضد عين كسوكلا وبشران ويعني دولك أو معان عملات أو معان حوله كلون بط بر وبيو يعني خيرات إلهي هذي لا يكيد معه marka waxaas dhammaan la ku xasdaya waxaas siidar iyadoo ay nahaydad ahlu tawxiid la ilaha illa allah la taas marka waxay keentay in cadaweyna ay naga faa'iideysanayaan oo ay adeegsanayaan طريقه اما يعني منهج قديم او ولقد ay adeegsanayaan oo darbul islam bil islam islaamki in islaamki lagu garaaco martaasi ay adeegsanayaan oo say way mar qabaa'ilkii baa la isku garaacaya mar way ka tagay markay socon weydo koox ayaa la aasaasaya oo la isku garaacaya إنه ضد مسلمان دينتنا ما أقول إنه نكوح ما أقول نيك وداتك ليه كرامات إنه نكوحه يفرقوين أكل بحنا باب بنان وانك ما بنان ولا له وحاوي دينتنا دين مدنمو واعتصموا بحبل الله جميعا إنه مدونان لفري محنا لوجري ولا تفرقوا إن أين كلا تجنون أو كوح أكل بحنا أو مقعية لك بحنا أو طريقوين منهجية كلا دون أين قادنا ولا له دينتنا ما وافق سنة نبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة طبعا يعني والجماعة يعني أيقنا كل جنا أهل السنة لكن يعني علماء هذا يعني لو يقانو أيقنا يعني إن نحسن وفي عنتها مركب ولا على الرسول كني وأنه الشيء ويقول صلى الله عليه وسلم أنا قداش كينو نولادا وعقدونا اختلاف فربضا يكوحكو فربضا iyo yani madhab fara badan iyo yani magacyo fara badan nabigeena noo sheegay alayhi salaatu wasalaam halkuna waxa weeyaan yani si uu noo sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إن لو نقضه والله نقضي كتابك لا هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم مرك ولا لا يتاصل لا يا ولا ليال ونقض حقا كولا لوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله كبح كوحا يفرقوينك أو كل حزب بما لديهم فرحون كوح والبوحي الذي أنا صوت ظاهرة تكرنا وأهل النار تكرنا ومارتي قالت تكرنا ولا سقالي سينيا بعيال السبحينيا يعني ما ولا ليال ولا لاتين الباتين سكياتين مذوب عدونا يسن كفائدة سن xaaladda si haddaan ku weydiiyey xaaladda siyaasadeeda hadda Soomaaliya waxaa jirta in wadamada reer Yurubka ama Mareykanka oo kale ay isku dayeen 1993 ayay ku socod magaca United Nations inay Soomaaliya tageen caalamka qaarkood wadamo islaam ay la socdeen waa ka soo baxeen wadanka Soomaaliya waa laga tagay ciidan Ethiopiana galay waad ogtahay 2006 2007 xilligii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynimada loo doortay hadda waxaa la keenay ciidamo Afrikaan oo ay ka mid yihiin Ugandese waxay ka mid yihiin Burundis ciidan kale oo wadamada islaamka ka socda ma jiro waxaa hadda wadankii gashay Kenya Ethiopia maalin walba way gashaa Soomaaliya marka waxay noqotay meel wadamo kale iyo dad kale isku wada dagaalamaan maadaama adigu wadamada islaamka ah ay wax ciidan u soo direen ma kula tahay inay wadamada islaamka ciidan ay sidaas kuwaan oo kale u soo diraan waxay kula tahay in United Nations oo dhan iyo ciidamadan Afrikaanka oo dhan Soomaaliya faraha laga qaado mise waxay kula tahay ciidamadan hadda wadanka jooga sax bay ku joogaan marka laga reebo say kula muuqataa sida ciidanka Kenya oo hadda Soomaaliya soo galay maadaama aragtina madaxnimada Soomaaliya oo ridoolo والله هرتا إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيه يعني ما أنت هرتا ور حقيقة دي مال الله ترتمه أما كرسي اللغة فريست أو ما أنت يعني نين رجع أما نين شرف له يعني وده هالك أنا كفريسان هيا أو أنا جي أمارة تيوائي كان أركا أو مدحوين هبل هلا إنه يعني ما قد يطل ما أنت نينك شرف له ولا لو حلا جرب إنه استجدل كيس السوء بدبادين هاي الربا ما أنت هداد هرتا تاس عن قاعد عجلة هداد في سد qoys walba iyo qabiil walba iyo koox walba intii doqonka ahayd baa horjooga u ah marka waxyaalaha wada aniga waxa ka mid ah yani khasab ma anigu inaan kursiga ku fariisto laakiin waxa khasab ah inaan aqli iyo talo iyo midnimo iyo nabadda Soomaaliya say ku dhalan lahayd ilaahay idinkiis aan ka shaqeeyo dadka gaajaysan oo silcay oo saxariirayna say guryahoodii iyo nabad ugu helayeen ilaahay idinkiis ilaahayna ila garab galo waxaan ku dhacay walaal waa doqonimadeena inaga walaaloob weynay inaga heshiin weynay inaga danteena garan weynay ريول بنا شريك اسمته أيها الوقلاء ضدكي شلك وقيبصدي أو أبيالك أو ويالك جميستي أو دلي أو حري أو دعي أو بابي أو معركة كتخلصي أو مساجدي كبربرية أو كان إثيوبيا شلين الأديك سنين يا مانتي ما نينكي كقيبني يا قرن كود سيا نينكي NFD كايست أما الصومالي قلبت كايست ميا قرن كود سيا أديك ملول بكيني إثيوبيا وحيلات تاجيين كنيسديه بتاجيين وعليين دل كريستان أنا هاي كريستان نمدي بخطر لويا هاي الدنيا كنا سو جارة وأنا كان عدي لا يكون إسلام بنا لا دير رايا خطر بانجيس كأفريقيا كتشوجنا كنيسده هلا بتباديو إنك مسلم كأينا واجرا لنا إنك وحنا الكربا مركب نور بدل كيس السجالة أنا قم ما أنت يمين أنت قلت مدحوين رايك كانوا مدحوين إيجاد ملهي مهيجي أنت قلت أبليكيشن ديبتوني مرة هي مهيجي واي كان أنا نو كودا يمي زناوي إن أنت قلت غير هي واي كان واحد صابت أيوة مالها دلك أنا إسكال دلك أنا جاي أديك إسكال دلك تهرت وين ينكرن دلك يا إسكال أنا جاي أديك إسكال تلادي سنة هيك جودا وأنا هيك جودا أنا جاي أديك أمي ده يسمع أقربها يسمع شيء حلنا معها طلعنا نوم ضلنا نوم الصوغدان إني هذا نقطوران سيب بابيان سيب بربريان ما أنا وحكي للصومالية السجن وحنا دقني ما كوب إلا باتنك سنة أم بربرينو إلى إيه هذا United Nations إيجاد أميسوم أفريكان يونيون بلاي أنكسو غير يوروب إني وناق نوترا نوما تريان وناق نوما هيان وناق أنكويل كرنا كأن حبد ست ودات كأه قلبيات كفرية كأن وقوي كفرية كإثيوبيا صار راعية كل جين إني نمد علماء عام إن قرباس قضية دقن كإلا حرمية سياسي إلا حرمية كان ميليتري إلا حرمية كل جين يسحر جماعة يسقبسنا مني ما حكوا كابسن كرنا إننا كانوا حقبسن كرنا عيد كلنا يانا وحكسوين مركا فكرة الآية عيالنا ومقولنا عيالنا وها Soomaaliya إلهي بيلاده سبحانه وتعالى ضدنا إلهي وأصل صارها هي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم حتى تكجيزتان حقي إن أدوه اللسان أو رنت أدوه اللسان Soomaaliya إلهي كوكلوا كانسن كوكلوا إذنك إن كفي عنه ثم لا يكونوا أمثالكم أذلة على المؤمنين قوة الكود يدد كود يدين تود أدر عسل أو وجه العسل
بإلهي كان سنة رحماء بينهم كوا سنة حريستا بإلهي كان سنة سبحانه وتعالى إلهي نكوا سنة كم الدبو su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayay maadaama nin aqoon-yahan aad tahay wadankii waa kasoo maqan tahay magaaladan hadda aad kula joogtid ee Columbus rag badan baa ka tegay oo wadankii aaday say macnaheedu u caawiyaan wadankii iyo dadkii dalkii maxaad qurba joogta Soomaalida ah ee aqoon-yahanada leh macallimiintii leh dhaqaatiirtii leh injineeradii leh dhalinyaradii leh oo wadankii ka soo tegay maxaa tala ah oo aad halkan uga diraysaa in wadankii lagu noqdo wax loo qabto walaalayaal khayr allah idin siiyo abaarihii dadkiina iyo dalkiina waad u gurmateen hooyooyinkiin habaryarihiin abtiyaalkiin walaalihiin gabdhihiin Soomaaliyeed waad u gurmateen khayr allah idin siiyo gurmadkii abaaraha ha joojinina ha ku halaynina shirkadaha kan ajaanibta ama NGO-yada tan yani ku toogsanaya calanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya waxa qabanayna abaar ka saarayna gaajo ka saarayna Nairobi na fadhiya Addis Ababa iyo Kampala walaalayaal xalka ka suginina nin walba dirham ka dir oo shilin ka dir oo dollar ka dir oo senti ka dir oo badbaadi dalkaagi kuwa qurbaha ka tagaya oo aadaya xagga oo jagooyinka iyo kuraasta ka raadsanaya carruurtoodina halkan Fulistaan ku qaadanayaan oo doonaya inay martaajir ay ku soo noqdaan والله واسون كنت شايفان دولتي هورا عبد الرشيد علي جري دولتي لندن تيفر ما جحال دي جري تي اوهايو واساس ورددك غدها جوغا فدغا ka kaceen qurba joogtuna ha taageerto ayaguna yeesan noqon kuwa u nool calooshooda iyo farjigooda ama meel xun oo kursi ay inta fariistaan mahiiga iyo fulaan iyo ay iska gadaan oo ana shahaado wato oo yaani mahiiga wasan iyelo kar iyelo jaga ii warma war dalkiina wuxuu qabtay warkii dhakhtar ah tag warkii macallin ma hawtag warkii siyaasi hawtag warkii oday uu noqo warkii ganacsato uu noqo warbadeeni aynu falano aynu kaluumays kala soo baxno maraakiibtan ka saarno warbeeraheena aynu qodano warwabiyadeeni aynu durdur ka jeexano maarata dilay ku miisaan sameeyno warshado iyo ganacsi hal geeyo yaani dhaqaalaheeni maarata aan kobcino ummadeena wax u tarno iskuulaadkii furno jaamacadaha hal la furo isbitaaladii aynu dhisno hadilay ku idmaayo gacmaha aynu isqabsano gacmahooda jirba waxay ku gooyaan farkaliina form dhaqdo waxa soo dhan waxa san dib u noqon kara alla ka cabsi iyo daacad iyo hadilay ku idmahayo run iyo lillahi ba qabiilkana xaq iska dhigno oo ka tagno qabiilku waa qurun qabiilku ku guuleystay qabyaalad ama sharaf ku gaaray maayno nin wala waxa wax ku tahay walaalnimada islaamnimada la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyo inaynu taas qaadano shisheeye حال نومه شيء يدن نومه وضع شيء أرحن نومه إنك ولا لا إنك أرحنا إنك رحمة إن إسقدرينه إسحرمين وإسقورنا إسو تنازلنا وكل سوء يا ماله كي من حوالين نقول يوم كارا نقو أنا ديار وين كاغا كعين أنا ديار وين كودا يا أديك هذا حقبنيس هذا حقبنين أنا حقبنيه يقول حقا